gurigan gubtay nacma nooga sharax gurigan jiinkad weeyaan saddex maqsin buu ka koobay gurigan intuu leegay wad arkaysaa dawladda iyadu way naga dhaga adagta cid inooma jeedo wuxuuna kacay dabkaas saadii duhur markii lagu jiray hagaag daawadayaal waxaan ku sugannahay cidhifka koonfureed ee xaafadda Istaaska magaalada Hargeysa oo goor dhaweyd dabka kacay uu dhulka la simay guri jiinkad ku yaallay goobtaas ciidamada damiska oo goobtan soo gaadhay iyo bulshada xaafadda ayaa ku guuleystay inay damiyaan dabkaas haddaba bal sababihii keenay iyo sidoo kacay dabkan qaar kamid ah goobjoogayaasha weydiin doona hooy bal dabka sidoo kacay maxaad ka warhaysaa waxaan ka warhayaa hooy anigu gurigan gubtay waa gurigii igu xigay ma garanaysaa kadinkayga iyo madbaqiisu isku beegay guri saddex maqsin iyo waliba qol yar oo kale ka kooban buu ahaa maqsinka koonaha alaab baa ka buuxday alaab nooc walba leh haba ahaatee saadi alaabtii aan u dhigun baarka guriga qiiqaya marka aanu caruurteedii gudaha ku jirtay baan soo saaran kuri nasaara wax alaale wax gubayna garan mayno guriga taas isla baxay ku kala baybayo ka dambeeyo guriga ka dambeeyana wuu gubay dunidu way isla kacday tawaka marka ay loo baqtay see loo guuleystay waxa lagu guuleystay markii hore shicibka xaafadda lambar 1 iyo dhalinyartii waxaas ayaa ku kacay marka dabdamiskii baa yimiday dabdamisku markuu yimiday alxamdulillah ilaahay ha caawiyo daqiiqadba way baqtiyeen guriga kale anu waa kana waa ku xiga inta yar uu ka gaaray mooyaane waxba ma noqonin caruurtuna way iga baxday alxamdulillah ilaahay baa mahadle ilaaha nabadbaadiyay dawladda iyadu way naga dhaga adagta cid inooma jeedo istaad hawska waa heen baa gubtay baa la leeyahay mar horena waa ku celiyay istaad hawska Somaliland dawlad kasta codka ugu badan waxay ka heshaa Soomaali waxay ka heshaa istaad hawska 8,000 oo qoys ayaa degan hadaan ka badnayn ma fahantay dad curyaamiina degan dad waxaan ku wari ilaahay walaalayaal kulli meesha waxa ka dhacay waynu aragnaayo waa dabkaas wuxuuna kacay dabkaas saadii duhur markii lagu jiray ay kulli dadku way kala maqnaayeen laakiin alxamdulillah dabkii waa lagu guuleystay inuu baqtiyo gurigii wataas waa la baqtiyay wax ka badbaadayna ma jiro gurigaasi sidaan ognahay anagu guriga jaar baan oo madrasadeedu waatan ku xigta horta Ismaaciil qalina cashuur marka duhurkii buu gubtay markii salaada duhur loo dareeray soo noqodkii dumarkan uma warwaraystay dumar gurigiina cidimay gali jirin baa laba deganeen ta hore amar ilaahay inuu horta imika waxaan ku eedaynayna wala baaris mooyaan dambe imika wax lagu eedaynaya ma jirto waxaan u ogaanay guriga isagoo ololaya oo la qaylinayo ma soo yaacnaa anagu waxa gubay war uma hayno marka gurigii ololaya ambalaas waxa la qaraacay ambalaaski marka uu yimid dabkii baqtiintiisi baa la galay anaga dadamiska uu yimid waxaan ku baash wal isku riday da waxna gubaya ma garanayno gurigan gubtay nacma nooga sharax gurigan jiinkad weeyaan saddex maqsin buu ka koobay gurigan intuu leegay wad arkaysaa maxaa ka baxay wax ka baxay ma jirto shilin ka baxay ma jirto wali ka arkay weelkay dadkii galay gabadhii dudma ku maqantaan u malanaya waxba yaray burcay dudma ku maqantaan ninkii baa galay habeenkii soo hayda maalintii uu qufushaa waxa guriga arkaysan dabka qabsaday gurigani guud ahaanba shufbeelay waxa jirta saameyn kale oo yeeshay in guriyihii u dhawaa uu gaadhay qaarkood oo sida hadda inii muuqato gurigan qayb kamid ay gubatay inkastoo la dabaalay dabka oo la isku dayay inaan u gudbin goobaha kale ciidamada damiska iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dawladda hoose oo goobtan soo gaadhay guud ahaanba warbaahinta